السلام عليكم dhageystayaal waa qayb kale oo kamid ah barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aan ugu magac darnay muuqaalka Soomaalida maanta waxa barnaamijka idin soo diyaariyay Amin Media Limited waxaana idin la socodsiinaysa Keen Xaaji Makaraan oo joogta magaalada Muqdisho waa insaan aqoonraha dhaqmana islaamnimo Amin Media waa nabadilaha shaqo dadkeena yaqaanimo Amin Media waa qaybtii toddobaad ee barnaamijyada muuqaalka Soomaalida maanta waxaana martii noogu ah Sahra Cabdullaahi Caatee oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho qolkiiba 30 ka badan baanu lahayn iyagaan xaqiro noo diiday laakiin baarlamaanka maanta fiican u dagaalamaya ciidanka inay wax helaan mushaharkooda banaanka u dhigaan iyaga soo xulay oo keenay laakiin anaga xogaa duubti bay naga galeen aniga iga dumarkii doonayay baan ha waa la iga qaadanin baa la siiyay maxaad leedahay waa la sameeyay wax fiican baa inoo sameysmay xandeel ku gaarkii ka baxnay oo dawlad hadda la aqoonsan caalamkana calankeena saa uga babanayo taasoo hore loo sii wado dawladina wala cadaalad muujisaa ilmahaaga aad dhashay hadaadan cadaalad u sameeynin isagaan isku mid noqonaynin shacabka iyo ganacsataduna inay dawladda taakuleeyaan dhexda ka baxdaa bakeela qaleen ah waxa qoys weexo wala kale u olole waxa xoolo urso isticmaalka garabsi Amin Media Amin Media Amin Media qadarkaas yar ee hordhaca kadib ayaa inuu ku dhaafaya Keen Xaaji Makaraan oo barnaamijka idin la socodsiisa waa Shariif Cali Shariif oo idin leh dhageysi wacan kulantu wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka muuqaalka Soomaalida maanta waxaana maanta marti noogu ah Sahra Cabdullaahi Caatee oo kamid ah hooyooyinkii Soomaaliyeed oo 20kii sano ee dalka burburka ku jiray gudaha dalka ku sugnay ugu horeyn maam Sahra waxaad nooga warantaa 20kii sano dalka miyaad ku sugnayd mise dibadda ayaad uga baxday بسم الله الرحمن الرحيم صلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يلاهن دوم يلاتك سنتك وكسونا وانا جوغي dhibaatadu ka dhibaatadii ka dhacday ee haweenka Soomaaliyeed ku dhacdayna wax aan cid waliba garanayso ogtahay sababtoo ah waxa dhacay dagaal waxa dhacay burbur wadankii oo la burburiyay dagaal xun baa dhacay hooyooyinku aad iyo aad bay u soo rafaadeen haday tahay xagga haweenka oo caruurta ay xagga naftooda ay raadinayaan qutul daruurigii dhibaatadan loogu hayso habeenka haday saguurayso xogaaga ku soo shaqeysaba laga boobayo ama laga dhacayo oo jidka loo geliyo salaada hore markay kala hayaan noloshana waxay ku raadisay nolol walba tii meel sare ka qabsan karta tii meel hoose ka qabsan karta tii caruurta caanaha yaanyada ganacsiga horta ugu badan waxa iska la haweenka laakiin waa hooseeya inta badan marka caruurta waxaan kala kulanay dib badan ragna ma shaqeynay maadaama dalkii burburay 18 gobol ayna isdhex maraynin adduunkii kala daatay dumarkii way hawsha ku dhacday maadaama ragii shaqeynayn oo nabadgelyo haysanba kii u shaqeyn lahaa in kastoo qaar saaqidin yihiin oo aan dumarba ka warqabin haddana kii shaqeyn lahaa nabadgelyuna haysan waa 18 gobol baa wala aad jiro kala shaqo tagi jiray 10 walaalo oo wada dhashay baa shaqo wada heli jiray haddana waxa reer hebel qalbi qofku keensanaya oo uu keenayo odayaasha oday dhaqameedada oo la leeyahay maanta wariyaa wax dabooli kara bal ninka gabadha ha joogta ninka hala diro qofta dumar ragga waa ka shaqo badantay habeenii maalin way ordaysaa nabaday ka shaqeynaysaa awlaaday ka shaqeynaysaa dhibaatooyin fara badan baa kala kulmay laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin sanad basan rajo ku nool aan isleena ilaahay un baa nabadgeliyo dalkiina idinku keeni doono dawlad baa idin daalanaysa haba xumaato dawlad xun dawlad la'aanta way dhaantaa xitaa mid lagu siimeel gaarayay mid uun de kullayba intay dawladdu dhalatay hadda waxba il furmay haweenkii way shaqeeyaan dal iyo dibad wixii jira tii kuwii dibadda jirana waa rafaadsan yihiin mid caruurtii laga kaxaysay waayo ma qabna kuwii dalka joogay baa aaminsan inaanu fiicannahay sababtoo waxay dalkayga dadkayga la joognaa laakiin balta la joogto dibad oo ninkiina ka saaqido gidaar taagan yahay iyadina caruurtii ma shaqay doontaa ma bariis bay u raadisaa kuwaasaa dhibaato badan inta badan laga kaxaysanaya caruurtii dhaqankii ka duwan yahay noloshii ka duwan tahay kuwaasaa dhib haya laakiin anagu inteeda Soomaaliya joogto waxaan qabaa 100% wax kasta aan isku qabnay Soomaaliya dalkayga baan joognaa ciidii hadda gidaar seexatid waa wadankaagi aan uga fiicannahay kuwa dibadda jira muddadaasi ay dhibaatadaasi adag ay jirtay sidee naftaada ugu qancin jirtay in mar uun dhibaatadaasi laga gudbi doono waxaan ugu qadcin jiray qof ilaahay dad islaamaynu nahay 100% dhibaatadana inaga keensanay gacanteena ku keensanay maadaama gacanteena ku keensanay mar walba waxaan rajaynaynay in dadkayagu nabad noo noqdaan nabadda aan ka shaqeyno hadaan haweenahay dhexdaan xidhay qaar badan way jiraan ma oran karo Soomaaliya gabdhaha Soomaaliyeed way wada wanaagsan yihiin nabadna way ka wada shaqeeyaan markii ninkii xun iyo wiilkii xun banaag bi ka soo agtoosayaan
marka haddii aad wiilkaaga ilaashatid ninkaaga ilaalisid waxa wanaagsan ku hanuunisid dhibta ka reebtid wanaagu waa imanaya hadda waxaanu ku tashanay inaanu raggayaga iyo caruurtayada iyo awlaadayada sidaanu u wacyigelin lahayn ama gacanta ugu dheer ama wax xun uga reebi lahayn si nolol loo gaaro rajadooda boqolkiiba waa fiicneedo qof islaaman dadka islaamnimada rajadooda kama xubaata waxa ku dhacana waa qadar ilaah qadarta ilaahana ilaah baa ka ilaahay wuxuu ma keeno lagu museeyo annaga gacanteeda ku samaysanay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa raggayga iimaanka ilaahay ku soo celiyo dalkooda iyo dadkooda gartaan ka naxaan awlaadooda daadsan dal iyo dibad Soomaaliya maanta dhalinyaradii meeday wax badi la tagtay iyo wax noqday ragga qoriga sitee maskaxda laga khalday caruurta yaryar bay noqdeen ilaahay waxaan baryaynaa anagu inta baryayno gacmaha warsanayna inaba dalkayga dadkayga ilaahay noogu soo celiyo niyadeena marnaba ma xumayn dad islaamana ma moral xumaano ilaahay ba talada la saartaa tacdiidii badnaa iyo waxyaabihii badnaa ee dhacay maxaa kugu yaabadnaa maxaase kugu muruga badnaa oo ilaahay hadda qalbigaada ka goyla oo wax xusuusan tahay wallaahi tacdiyada badan waxaa noogu maqan burburka iyo dhibaatada dhacaysa dadka iyaga la laynayo madaafiicda ku dhacayso maalin walba madfac iska xiimaya nabadgelyadii anagu markaanu iska xumaynay waa inay quwado shisheeye soo galaan annaga gasbanay oo gacanteeda ku keenanay waxa maalin walba la xasuuqaya ee dhimanaya waa Soomaali muruga marnaba kaaban bixday ee damcaan intii burburku jiray hadda niyada soo hagaagtay mar walba waa murugaysanay way dhibaato dalka ku dhacday waxa dhimanaya waa wiilasheedii waxa dhimanaya waa raggayagii waxa dhimanaya waa awlaadayadii mar walba muruga waan lagu jirtay ilaa murugaduna waxay naga bixi kartaa hadii ilaahay idmo oo anagu gacanteeda hadaan nahay Soomaali gacmaha hoorsano nabad ka shaqeyno goob iyo geed walba la soo tago isin wax garad haween inaanu anagu hadda nabadda ku soclaan moorku noogu hagaagaya oo noogu ayaan darargayga dadkayga la laynayo baa noogu murag bad meel kasta joogeen especially koonfur ba aad warwarka badan nooga haysayo dhibaatada ka socota hadiya jeeraan marka ilaahu dalkayga barwaaqo ka dhigay oo meel walba barwaaqo tahay aanu cuni la aan dalkayga baahi u dhimanayo nolol dawariyo gaal baryayno niyada wanaagsan maxay imanaysaa waxa iman muslimku inuu isu gargaaro meel kasta joogo $1 aan ururnaa adduunka nisadu $1 bay ururiyaan annagoo isu naxariisana ilaahayna noogu naxariisanaya dhibaatooyinka way badan yihiin maalin walba marka TV-ga ka aragtid dadkaaga macluush leynayso gaala gacan horsan ilaah ba gacanta la horsada oo la bariyo oo qaniyo qofur raxiina ilaahay baa naga saaray dhibta moorkaygu mar walba wuxuu yahay laakiin rajo ilaahay aanu qabnaa iimaan baan leenahay muslim baan nahay waan ka qabnaa wadankayga dalkayga ilaahay ragayga inuu hagaajiyo qoriga ka dhigo ay gacanta isqabsadaan muddadii si ay dhibaatada ay jirtay maxaa kugu farxad badnaa oo dalka marxaladda adag ku sugnaa dalka waxaa noogu farxad badan marka maamul wax kasta ha noqotay la taagay oo dawlad federaal noo dhalatay oo ummadii isu keentay had ilaa hadda maamulka taagan ilaa Cabdullaahi Yuusuf dawladdu dhali horta anigu gobolada Puntland baan ka nimid Puntland waa nabad dawladna waa socotaa marka waxaa noogu farxad badnayd oo aan ka warwarinay waa koonfurna markii dawladdu ku meel gaarka ahayd ay dhalatay wax kastaba ha ahaato ilaa hadda waa dawladda dalkii uu lagu nool yahay oo lagu barwaaqaysan yahay oo dhibaatada yareynaysa mar walba insha Allah hadda waxaan ka rajaynaynaa dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud professor Saacid ra'iisul wasaaraha Cabdi Saacid inay horumar iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo aad iyo hadda ugu faraxsanahay siday sameeyeen ama ciidanka ugu hadleen ama dhaqaale loo qabto aan ugu faraxsanahay hadda niyadeedu 100% oo fiican tahay waayo ku meel gaarka ka baxay waxa gaadhay dawlad adduunka laga aqoonsan yahay inaynu maanta aanu rajaynaya in rag iyo dumar dhexda la isqabsado dhalinyaro aqoon haween dal iyo dawlad wixii jira maanta waad aragtaa waxa ka dhacaya Kenya inta jirta qaxooti weeye maalkeena oo dhan baan gelinay in dalka maalkeena ku soo ceshano kuwa dibadaha soo noqda dalkana nabadda ilaahay u sii siyaadiyo marka ugu horeysana ciidanka salka waxa la dhigaa oo lagu seexdo waa nabadgelyo marka la helo waa wadanka wax loo qaban karaa waxbarasho horumar laakiin nabadgelyada maxay u baahan tahay in ciidanka dhaqaale fiican la siiyo oo ganacsato haween wixii waxeli karaa ciidanka nin gaajoonaya amni ma sugi karo amnigeena waxaan ku saxan karaa ciidankeena la hagaajiyo baarlamaanka Soomaaliyeena 100% waa u taaniyadeynaya sababtoo ah ciidankii bay dhaqaalahoodii meel saareen niyadeeduna aad iyo aad bay u fiican tahay maanta ilaahayna ha noo sii siyaadiyo maxay tahay aragtidaada ku aadan muhiimaddu ay haweenka Soomaaliyeed ay u leeyihiin bulshada dhexdooda iyo siyaasadda dumarka doorka ay waqtigan ay ka qaadanayaan waxaan u arkaa dawladda dumarka haweenka Soomaaliyeed aqoontooda 100% bay dhisan tahay ay hadda wanaagsan tahay intii wax aqoon ay ugu talagelayaan gabdhaha NGO-yada iyo wax wada in aqoontooda kor loo qaado siyaasadina waa galeen dawladda ma sha Allah
toban wasiir baa la helo laba leena siiyay labadii hal leena siiyay intee hay'adood bay maamulayaan madaxweynaha aad baan horta ugu mahadinaynaa xaqii xildhibaanada inkastoo naloo diido gabdhii xildhibaanada doonaya aanu ka mid ahayn oo nala cagtana la saaray isimadu cagtana saareen haddana in nagu filan maanta dumarka u doodi kartaa wax uga qaban kartaa way noogu jiraan dawladdiina maanta ilaa waxaa socda wasiirada waa ka qayb wasiirada ku-xigeenada waa helay haddeerna waxaan rajaynaynaa safiirada agaasimayaasha guud kuwa waaxaha ilaa beginning to end inaanu shaqooyinka qaybteeda nala siiyo dawladuna hadda way u fiican tahay dumarka waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu wax la qabto wax weyn bay ka qaateen haddeena dumar dhexda xidhan dal iyo dabadba kuwii jiray dee waxbaba ma hagan iyagaa soo gaarsay dumarka halkaa aad iyo aad bay u muujeen haddeerna u shaqaynayaan xitaa kuwa hadda baarlamaanka ku jira hadda waxay ugu dayeen dalka iyo dalkuba inay horumar la gaarsiiyo qaybtooda roolkooda weyn bay ka qaataan haddaan dumar jirinna oo ayna shaqaynaynina mid yaanya u dhaqaaqda mid shaqaysa hay'ad mid ka shaqaysa mid walba mid hilib ka shaqaysa noloshu maalinba heer bay gaarsiisan tahay heerka iyaga soo gaarsay caruurta tan maanta dabadda wareegaysa ama dhibaatada ku dhacayso baan aad ugu rajo weynahay inay gabdhaha Soomaaliyeed isu xil saaraan loo sameeyo meel lagu ururiyo lagu dhaqan celiyo sidii dawladda hore Maxamed Siyaad la geeyo meeshan afka iyo sokadeeda iskaa wuxuu qabsay adduunka ku dhistaaye iskaa wuxuu qabsay wax loogu qabto oo waxaan darbi jiifka ee suuqyada jiifa iyo waxa dayacanba waxaan rajaynayaa haweenku waan u qabanayaan dal iyo dabadi inay wuxuu qabtaan dawladuna kaalmayso u dhisaan guryo ay ku noolaadaan wax lagu baro aad baan ugu rajo weynaa inay u sameynayaan waana ku tala jiraan dhibaatadana waxa keenaya hooyadu waxa weeye asaaskii guriga markii aroortii ka kala hado ma shilin bay raadsan ilma tarbiyad la'aanta iyo caruurtan yaacaysa caruurta la kaxaysanaya hooyadii baa ka maqan guriga macallimadii guriga weeye waxay raadinaysaa irsaaqadii lixdii subaxna bay kala haysaa waxay imanaysaa lixda fiidnimo waxay cuneen iyo waxay qabteen iyo meelay mareen bayna ka warhayn dhibaatadaasna waxay imanaysaa haddii raggu shaqeeyo haweenku sidii hore u shaqeeyeen dawladda shaqo ka helaan oo ay la soo saan jiray 12 ka la soo deyn jiray haweenka 8 shaqo tigir jirtay caruurta waa kala diri jirtay odayga waa kala diri aroorta hadhow waa soo hormar jirtay 12 tarbiyad baaxirtu halka kula hanto ima jirtay 4 bilood oo nuujisa la siin jiray haweenka oo intuu ilmuhu yar yahay marka haweenku marka xafiis aadi jirtay way hayn jirtay awlaadeeda gacanta ku haysatay ama aabba wanaagsan oo shaqeeya dhalo caruurta gacanta lagu haysay tarbiyadda kama loo jiray tarbiyadda waxa ka lumiyay hooyo salaad dhaqaaq shaqo tagaysa guriga iyo caruurta cilla kaga tagaysa midaan cid balahayn baa u imanaya way wada dhaqaaqayaan marka dhibaatadana waa laga bixi doonaa insha Allah kuwii xumaadana waa meelaha lagu xareynaya kuwa dambana hadda markay shaqeeyaan dalkooda iyo dadkoodaba way anfici doonaa dumarka iyaga aan ka shaqeeyo dalka iyo dawladda u shaqeynaya dawladana qabanaya gacan siinaya weyn haddii dumarka shaqooyin ku sheegay odayga naag buu ka soo toosaya wiilka wax dilaya naag buu ka soo toosaya taa guddoodana wayna naag walba ninkeeda iyo awlaadeeda gacanta ku qabatay hagaajisa wax xun ka reebtaa wax wanaagsan oo horseeda say awal baahan jirtay inta yar naga leexsan ilaahay baa soo hadeynaya maxay tahay aragtidaada ku aadan xadgudubyada loo geysto dumarka Soomaaliyeed nooc kasta ahaadeen ama awood muqooniska lagu sameeyo in dumarnimo loo liido waxa dhacaysa dumarnimo looma liiday hadda ragay la gudbayna wana ka aqoon badan yihiin aqoon hadda way aad bay dal iyo dibad wax ugu soo barteen waxa dhacaysa kufsiga iyo dhibaatada loo geynayo waa burburka kan qoriga sitee dhibaatada wada ee aan maanta meel gacanta lagu haynin shaqo dawlad gacanta ku hayn hooyo ku hayn aabba ku hayn baa dhibta keenaya haddii dhibaatada laga baxo way dhaceen bur waa la kufsadaa waa la laayaa qaxootiyada lagu kufsadaa dalalka dibadda lagu kufsadaa ma aha Soomaaliya gudaheeda meel walba way ka dhacdaa kufsigaasi laakiin dhibtaas waxa ka saari kara iyagoo dalkooda iyo dadkooda nabadgelyo u helo dalkooda ku soo noqdo laga wada shaqeeyo nabadgelyada laga wada shaqeeyo wiilkan qoriga sitee dhibta wada oo dhibaatada daynayo gabdhaha gudhooda la kufsanaayo inta badan wayna ku ekaadaan ilaab iyagu gudhooda leeyihiin guriyooda ku ekaadaan waqti aan la bixin baa jirta waqtiga haddaad maalinta soo adeegato suuqaaga martid habeenkii way wax dhibaatada dhacda maalinta lala baxo gabdhaha gudhooda wayna guryahooda ku eegin marka gabar ku dhacaan oo ku xisaabtamaan dhibaatada dalka taala iyo gudhoodii hadday baxda gabar habeenkii baxday deeyada u socotay suuqa dhibaatada ragga kaliya male gabdhuhuna waa la leeyihiin waayo guryahooda joogi lahayd waa laga baxaya haddii dawladdu inuu hagaagto waxaynu kaga bixi karaa isku duubli wada shaqayn horumar la gaadho waxaa barnaamijkan kuu soo diyaariyey Aamin Media Limited. mala kulantay tacadiyo noocaas ah oo loo geysanayo dumarka maxaa dareentay haddii aad aragteen haddaan dareeno waa loo geystaa wayna dhacdaa mana yara haddii loo geystay waliba intaasoo haddana sida aynu nahay ama wuxuu dhaceen tacadiyada
haddii sida ay wax u dhaceen loo geynayo islaamnimada iyo soomaalinimadu celinayninba xad bay ka badlaan waayo meel walba waa la daarsan dawladina ma jirin hadda se de waa murugo waa jirkaagi waa gabdhahaagi waa haweenkaagi kuwa sagaal dhasho foolanaya la fuulaya taasina waa dhibaatooyin waaweyn oo dumarka ku dhaca insha Allah marka dawladnimadu laga baxo burburka iyo dhibta ayaa laga bixi doonaa soomaalinimadeedu ku soo noqoto islaamnimadeedu ku soo noqoto iskaashigeedu ku soo noqoto wada shaqaynteedu ku soo noqoto islaamnimadeedu ku soo noqoto waxaan dareerayaa dib igu waxaan waa jirkaygii waa caruurtaydii waa gabadhaydii iyo ilmahaygii oo kale ilmaha lagu qabsan dib weyn baan dareenaa aad iyo aad murugo u leh laakiin laga dadaalo in badan ba la sameeyo inayna dhicin oo wax badan oo dadaala lagu sameeyo taaqudheedo wax badan ba hadda isbedela marba maalin step u soo socda in dhibaatada laga gudbo waayo horumarka la gaadhay dadkii oo shaqaynaya meel uga soo wada jeesanaya hadda isku xidhnaaday Soomaalimadii gartay ilaabay wixii qurunkii iyo qabyaaladii wixii lagu sheekaysanay Soomaali halka dhigay marka hadda wiilashiyo wacyi gelin fara badan hooyooyinku siiya nabadaanu ka shaqeynaa meel walba waa galaa ifaacti ilmada yar yar way u soo joogsadaan waalidkood marka haweenka iyo ragga waxay ku habboon yihiin dumarku inay wacyi gelin siiyaan dumarka had iyo jeer wacyi gelin la sameeyo ee cadaah laga hadlo caruurta la awlaadeeni weeye wax xumaynaya loo sheego qaladkay gelayaan loo sheego inay walaalahood yihiin hooyadood yihiin ceebta ku soo noqonayso marka ilaahay iimaankii ha ku soo sugo ummadda Soomaaliyeed dhibaatadii ku jirna ilaahay naga dulqaadan hooyale maxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay dalka ay ka soo qaateen iyo waxa looga baahan yahay inay sameeyaan mustaqbalka dhow dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka soo qaateen dhalinyarada horta in badan baa dhibaato soo martay waaniga ku sheegay marka waalidkoodna ka tago hooyadii ka tagto aabihii mas'uul hayninba isagoo waxba bacanaadey meel ka shaqeeya male way shaqadii ba soo kooban marka dhibaato badan bay dhalinyaradu soo mareen waxay isku mashquuliyeen markay iskuuladii ka baxeen jaamacadii ka baxeen ay shaqo waayeen ay badda ku daataan oo dhibaato ku dhacday awlaadeeni oo burcadbadeed galaan burcadbadeed inkastoo leenagu kalifay oo markii hore iska jireen dadkeenu kalluumaysato ahaayeen dalkood iyo dadkood u kalluumayn jireen markay arkeen maraakiibtan baas ee dalkii jiriifaysa ee dhiganaysa waxaan guranaysa macal ukunta xaabsanaysa oo laga qaaday waxoodii ay ku shaqaysanayeen horta burcadbadeedaas ay dhalinyaradii wada galeen markay shaqo kala waayeen mid saaxiibkiisoo lacag haya unbu arkay dhibaatada ka sokaysana ma arag halaaga ka sokeeyana ma arag way isku shoobeen qaar badan baa hadda wacyi gelin sameeyay ururay sameysteen dhalinyaradu hadda moorkood markii hore moorkood waa ka dhintay shaqo la'aan baa ku dhacday waxa ku dhacday fikir fara badan qof meel iska fadhiisanaya muxuu ku dhawaaqayaa mid iimaan la oo meel ordayo waxa isagu arkaya waa raacaya mid qori u dhiibanayo raacaya hadda si aad bay mooralkoodii dhalinyaradu u soo fiican yihiin u fikirayaan inay wax qabtaan dalkooda hormariyaan nabadda oo aan lagu shaqaysan ee iyagu shaqo doonaan wax barteen ayay u badan yihiin wacyi gelin fara badanna way sameeyaan dhalinyaradu waan la shaqeeyaa anigu dhalinyarada had iyo jeer waa la socdaa waa taakuleeya waa wacyi geliya dhalinyarada aad iyo aad baan iskugu fiicanay laakiin hadda mooralkooda aad iyo aad buu soo fiican yahay dhalinyaradii way fikirtay dhibta dhacday way aragtay waxa dhimanaya waa yagi wax meel kasta la geynaya hadda se mustaqbalkoodii iyo waxbarashadoodii insha Allah dawladuna daba shaqooyin bay u abuuraysaa maxaa looga baahan yahay mustaqbalka dhalinyarada mustaqbalka dhalinyarada waxa looga baahan dalka iyo dadka inay u shaqeeyaan wax bartaan noloshooda soo celiyaan maaha mustaqbalka bari waa ka maanta iyaga ka shaqeynaya meel walba jooga marka inay gacmaha isqabsadaan wixii xun ka hortagaan wanaaga isfaraan inta wanaagsan soo qabato oo ay wacyi gelin fara badan oo la siiyo oo iyagu is wacyi geliyaan dhalinyarada dhexdeeda kaliya ayay kaga soo bixi karaan wixii xun wanaagna ku sameey karaan dalkooda iyo dadkooda iyaga horumarin karaan oday iyo habar wax ma qaban karaan waa dhalinyaradan iyada looga baahiyay maanta inay dhexda xirato wadanka horumarka heshiiska isdhexgalka kubadda la ciyaaro wax walba iyaga hadda looga baahan yahay hadeerna sidii hore aad bay uga bedelayeen dalkan horumarkooda iyo dawladda la shaqayntooda ciidamada meel walba ku jiraan way la shaqaynayaan haddana waa guntadeen wixiina waa ka bixin ay ku jiraan cidna maanta ba ka haysan karto askari dhinacna kama dhigan karo maanta mustaqbalkooda isoo jeedaan dalka si ay horumarinaayeen dhexdan isku qabsanayeen nabadgelyana dalka uga dhigi lahaayeen meel walba dhalinyaradu way furfuran tahay dhibi kuma jirto calooshooda ay isdhexgalayaan bay ku fiicantay wacyi gelin fara badan la siiyo in lagu la dadaalo dawladdan lagu dadaasho sidii shaqooyinkooda iyo iskuuladooda jaamacadaha iskuulada bilaash looga dhigi lahaa ay moral cid kasta wax baran lahayd oo inuu ku fakareen bari xagee ka doontaa meeshii aad iskaga bixinay iskuul faaganiyada moralka u dhisan hadda highway markaan arko dhalinyaradii shaqana loo abuuro dahaa hadii loo abuuro beerey noqdo hadii la noqdo kalluunsanta la noqdo hadii la siiyo xitaa tababaro ay xafiisyada temporary ugu wada shaqeeyaan la geeyo hay'ad walba xafiis walba la geeyo xafiisyada gaarka loo leeyahay ganacsatada gaarka loo leeyahay lagu amray in dhalinyarada qaataan
hay'adaha dawladda meel walba la geeyo xafiisyada dawladda moorali waa shaqeynay xitaa waxay ku shaqeyn karaan temporary booskii banaanada dhalinyarada loo qaybiyo shaqo abuur la siiyo nabadgelyo waxa soo dhow waxa hooyo ka horeeya ama nabadgelyada ama shaqada waxa ka horeeya nabadda oo la dhiso marka hore saan ku sheegay ciidanka amniga aad dhisatid amniga marka dhisatid wax walba dhalinyarada shaqay wada helaysa batroolka iyo nimca dalkeena ka buuxa wala dhergaya xoolihii beeraley dalka batrool kaliya nabadgelyo hadaan helo hal ceel ba ku filan Soomaaliya oo dhan way dad yar baan nahay qof walba gasar galila waxa galiyaan dadka iyaga waa wada socday waa dhalinyarada inay maanta mustaqbalka nabadgelyada ka shaqeeyaan say horumarkooda u gaaraan ka waran dhinaca odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo doorka dhaqanka Soomaalida ay ka qaateen in la helo Soomaalida maanta aynu aragno dib u heshiisiin caam ah oo cadaalad ku dhisan wallahi odayaashu maanta sanadka 135 oday aad bay horta u dadaaleen runtii waxaana dadaal u yimaado soo gaarsiiyay dawladda ka horeysay shariifka runtii meel la iskugu yimaado ama wax laga qabto ama lagu wada heshiiyo horta dawladda baa keentay sheekh shariif madaxweynaha ka dawladda badbaado qaran baa horta keentay iyaga qudhoodu dadaal bay sameeyeen inkastoo dumarka na xaqireen oo noo diideen waxaanu xaq u lahayn 30% iyo ka badan baanu maaha 30 kaliya ka badan baanu lahayn iyagaana xaqiro noo diiday laakiin way guntadeen sidii nabadgelyo la iskugu iman lahaa baarlamaanka maanta fiican ee dagaalamaya ciidanka inay wax helaan mushaharkooda banaanka u dhigaan iyaga soo xulay oo keenay laakiin anaga xogaa dumpi bay naga galeen baanay dumarka aniga dumarka doonayay baan ha waa la iga qaadanin baa la siiyay waxa laga yaabaa ninka inay gabadhu ka shaqo badan tahay oo ka dadaal badan tahay oo runtii dalka iyo dadkaba u naxayso oo iyadu ku jirin dhaqaale raadso laakiin ku jirto maxaa dalkaaga u qabataa maxaad horumar ku gaarsiisaa bay gabdhuhu ku jiraan waxa yar ay qaataan iyagu waa ku filan yihiin qabiil maaha gabdhuhu qabiil waa bulshada Soomaaliyeed bay gabdhuhu ka koobayeen xitaa gaala guursatay iska daayay iyagu qabiil baa cid kasta u dhaxeen marka odayaashii waxay nagu xilinayaan adigu reer hebel baa tahay hebel lama nihin anagu umadaan u dhaxayna kuwaan u dhaxayna ma siiyaan kuwiina dhalayna ma siiyaan odayaashu anaga dambi waa naga galeen hasi ahaatee dawladdu way dhiseen runtii hadeerna waxa looga baahanyahay inay sidaa uga hadhin nabadgelyada wadaan goob walba geed walba oo la tago oo nabad ay ka dhaliyaan umada shiriyaan oo gacmaha la isu saaro maaha guudka inta la dhisay in laga tago waxa way ilaa salka geed loo tago qof loo tago dadka beel loo heshiisiyo ya oo dadka xitaa hantidoodii iyo guryahoodii la isu celiyo maaha intay meel taagan inay tagaan inay nabad si wadaan dawladuna ku gubaabisay nabad u wada lahaayeen oo ku soo celiso oo raas iyo reer iyo meel walba la tago gacmaha la soo geedkii lagu heshiiyo ayaa looga baahan yahay ismada sidee maam Sahra isleedahay hore ayaan uga sii socon karnaa horumarka la gaaray maxaad leedahay waa la sameeyay ama sameysmi waaye ama loo baahan yahay in la sameeyo waxa sameystay wax fiican baa inoo sameysmay meel ku gaarkii ka baxnay oo dawlad hadda la aqoonsan yahay caalamkana calankeena saa uga babanayo baynu uga baahnay taasoo hore loo sii wado oo dhinacna ayna ka bixin dawladdu waa shacabkuna waa inuu shaqeeyo dawladina waa cadaalad muujisaa cadaalad ilmahaaga aad dhashay haddaadan cadaalad u sameeynin isagaan isku mid noqonaynin dawladda waxa looga baahan yahay waxna ku hagaagi karaan inay horta dadka mas'uuliyiinta u ah inay ilaahay ka baqaan madaxa ugu sareeya ilaa ka ugu hooseeya biitooniga inay si daacad dalka ugu shaqeeyaan marka madaxweynuhu iyo madaxweyne ku xigeen iyo madaxda sare dawladda sharci ku shaqeyso oo cadaalad ku shaqeyso wax weecanaya male markay dawladda inoo shaqeyso dawladdu waa shacabka iyo ganacsataduna inay dawladda taakuleeyaan dhaqaalaha bixiyaan horumarka wax ka qaabtaan waxa lagu jihaynaya ama iska wuxuu qabsataa noqoto ama horumar iskaashatooyin loo sameeyo dhaqaale ama beeraha noqoto ama xoolaha noqoto ama kalluumaysiga noqoto iskaashatooyin yar la kiciyo warshado ganacsatadu sameeyso intay dabadaha ka sameeyaan dalka warshadii walba 100 qof baa u shaqo tagi lahay warshadaha dalka la keeno oo laga shaqo tago loo wada shaqo dawladda hareeraha la qabto waa yar tahay hadday cusub tahay dhinac walba la iska taago aan la mucaaradin horumar baynu ku gaaraynaa oo aynaan oran waa dawladda shacab iyo dawlad isku duuban ka dambiga gelaya shacabka ogaan kara dawladdu meel bay joogtaa hadaa biliiska u sheegaya halkan uu galaad leedahay marka dad isku duuban rag iyo dumarba dhexda ka baxdaa bakeela qaleen ah bal dawladda inay cadaalad samayso dadka u sinaato shacabka aragto ogaato maalmo siiso ay aragto oo una cabursan shacabka lala hadlo oo la ogaado wax dhibta ay qabaan waa horumar lagu gaari karaa waxa Soomaaliyeed u sameysmi waayay muddadii badan ku jiray
waxay u saayay dhibaato ay gacanteeda isku tamayso burbur iyo qabyaalad iyo qurun bay samaysay gaaladan dhulkeena joogta inaga gacanteena ku keenay waa ka bixi karaa markaan gacanteeda qabsano hadda ismadu beel walba tagaan horta markay beelahooda soo heshiyaan nin walba beeshiisa soo heshiyo uu beelaha guud noo iman karaa beel soo iman karaa dhaxdhaxaad oo dadka halka lagu heshiisiin karaa marka horumarka burburka waxa inoogu macan gacanteeda inay isu geysanay inaga isilay inaga isdhacnay hadeerna xoolihii hadii la kala haysto cid u galeenin heshiis iman maaye waxa loo baahay salka in laga soo ukumo weelka salka aftada la dhigaa soo in laga soo ukumo nabadda ilaahay la bariyo la duceysto ilaahay inuu nagu soo celiyo habadeeni sharafteeni karaamadii Soomaaliya lahayd adduunka ku soo noqoto oo waxa kala daadsan oo dhan dalku hadduu nabad qado waa ku soo noqonaya hantida hayaana waa keenayaan dawladdu abuurto wax dadka niyada u wanaajinaya oo cadaalad samayso oo aan u kala yaxan dadka oo lagu soo laaban karo dal iyo dibad waxa jira maanta cid maqlaan ma jirto horumarka yar aynu haysan sidee ku sii wadi karnaa Soomaaliya soo inaga kule inaga gacmaha isqabsanaa oo aynu isku duubano rag iyo dumarba dawlad iyo shacabba saasi ku soo noqon cadaalad la sameeyo arkaan madaxdu cadaalad sameynayso marka shacabku oo dhan isku duubmaya haddii cadaalad la waayo cid hagaagi mayso laakiin cadaalad iyo sinaan iyo ilaah ka cabsi qofkan kitaabka ilaahayna mar kitaabka sidoo u maray waa inuu ku shaqeeyaa shacabku ee dawladooda isbarbar taagan la shaqeeya hiiliyahooba hanti muruq maal iska wuxuu qabsan dalka lagu dhiso lagu qabsado oo lagu soo celiyo caruuraha yaryar aan sheegayo kale oo dhulka daadsan in loo dhiso dhul lagu xanaaneeyo oo wax lagu baro oo lagu dhaqaaleeyo laga ururiyo waxa magaalada waxa ugu horeeya la qabanayo iyo amniga marka la helo dawladdeena waa dhismaysaa waana hagaagaysaa amniga la adkeeyo ciidankana lacag la siiyo ku filan caruurtooda gaajoonaysa nin gaajoonaya waxba ma qaban karo aynu sidna inagoo dhan isku duubanba oo garanno caafimaad waxbarasho iska qabsan marka amniga haysid wax walba wad qabsanaysaa caafimaad baad helaysaa waxbarasho helaysaa laakiin amniga ka adka horta marka ugu horeysa amniga wala helaya wax alaal wax suura galaya ma jirto amnigana waxa isku duubni ma aha dawladdu inay wax ka bi karto waa cusub tahay way yar tahay dhibaato badan dagaal badan adduunka ku soo maanta inagu soo jihaysan dhibaatada taala Soomaaliya ma sameynaysa adduun weynaha inagu sameeysan inagu loolamaya saynuga maarana isku duubni in isku duman Soomaaliya hadaan ka maaranaba waxaan kale la sheegay inagu isku filaana dhixdeena cidna barin dhaqaalaha dalkeena la soo baxno cashuurta bixino guriyaha la cashuuro wax kasta la cashuuro ninka handida haysta huran nabadgelyada ku seexanayo waa inuu huraa ciidanka inuu lacag siiyo ninka ganacsatada inagu xabad yaan hadaan bixino koob laba liin hadaad maalintii bixisada aan tahay qudradley maxay ku yeelaysaa ama koob shaah bixis akood ku intii isku level ama dhaqaalahooda meel ku shubato oo dalka lagu horumariyo maxaa helaya wax weyn baynu ku qabsan karaa inaynu isku tashano dadna Soomaaliyeed rag iyo dumarba dhaxda qabsanaan dalkeena horumar ku gaarsiin karaan nabadana la sugo loo gudboonaado ka yare dhashay wiil iyo gabadh iyo arday iyo haween nabad laga wada shaqeeyo nabad markii la helo wax walba waa isbiit waa soconaya dardaaranka ugu dambeeya Soomaaliya u jeedinaysa muxuu yahay Masahra dardaarankayga ugu dambeeya u jeedin waxa la Ilaahay idin abuurtay ka baqa wadanku waa barwaaqo dadku waa wanaagsan yahay Ilaahay intaynu ka baqno Ilaahay u noqono alla barno duceysano dalkeena iyo dadkeena sharafteena iyo karaamadeenna sida Ilaahay inuu soo Ilaahay balla bari horta aan sameeyno dawladdeena aan la shaqeyno ayna waxba ka sheegin wax ka qodqodin aan la shaqeyno dawladda labada qof karsan waxba ma qaban karaan hadii aan la shaqeyn marka nabadgelyada in laga wada shaqeeyo la isbarbar taaga dawladda oo hiil iyo hoob la isla barbar taago sharafta iyo karaamada saas inagu soo noqon marta Ilaahayna barino idina wada salaamaya dhalinyaradana xoog la dardaarmaya dhalinyaradu waa u bixi dalka u soo kacayay oo u soo korayay dhalinyaradu wayna dhexda xirataa dalkana ma aha bariye maanta hogaaminta leeyihiin mid walba shaqo waxay ku heli karaan sharaf ku heli karaan karaamo ku heli karaan dalkooda ay nabadgelyada ka shaqeeyaan dawladooda la shaqeeyaan wixii xunna ay ka hadhaan wanaagana ay isfaraan isku wacyi geliyaan dhalinyaradu meel joogtaba insha Allah khayr baan u rajaynayaa iyo barwaaqo iyo badhaadhe dalku waa barwaaqo waa nimco hal badrool yar oo leeyahay soo saray nagu furan macdin yar oo meel ka qaadanay nagu furan dalkeena waa barwaaqadan cunno dalkeena barwaaqo ka dhigano horumar gaadhno Ilaahay ka baqno qofku waa inuu dhimanayo weyn ogyahay qofku inuu dhimanayo ogyahay Ilaahay ka baqo kii meel loo dhibaa waa inuu daacad yahay dalkiisa dadkiisa ma sanad Marwo Sahra Cabdullaahi Caateeyo oo kamid ah haweenka Soomaaliyeed guud ahaan barnaamijka intaasi aan ku soo gabagabeynayna intaana dib dambe u kulmi doono qayb kale oo ka tirsan barnaamijka muuqaalka Soomaalida maanta waxaan kaga tageynaa sidaas iyo amaanada فهنا منا وأسطن وتنينيمو وإسكاشي كوانيمو وأذك